ninkii muxuu ahaay diricii heblo wadatay isugu ekaa iyo waxyaabahaas oo dhan waa dembiyo tiro badan aad iyo aad inaysan ku dhaqaaqin. aad baa umahadsantaa caasho adoo jooga Sweden waa kaaga mahad celinaya barnaamijka dhaqan xumida ama magaalo joogno xumida iyo sida looga gudbi karo. Laynka telefoonka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. السلام عليكم دقيسيتا aad iyo aad waa fiicanahay soo dhawow magacaaga halkaa joogtid. ما شاء الله ماما Soomaaliyeed waaye waxaan joogaa Sweden aad iyo aad caawa Sweden ka shidan tahay haye marka ما شاء الله horta kelmadaha aad ka hadlayso waa wax wanaagsan laakiin waxaa ka fiicnaa marka in maaragtay dadka xumaanta la xasuusiyo waa wax wanaagsan midda kaleeto waxa waaye maaragtay Soomaalidu xataa qofaada wax ka samayn ayaa wuxuu ku bedelayaa xumaan laakiin anigu waxaan dhihi lahaa dadka laftigooda wax dhibsanaya mar walba samarka iskaga dadaala qaraabada iyo qofka kastoo islaamana soo dhaweeyaan dhihi lahaa waxyaalaha maaragtay ha laga sikado oo waxyaalaha waxa adiga hordhowto ama dadnimadaada ama ehelka kala jaraya oo xumaanta ah ha laga sikado waxa jira dad intii loo soo martiyo dadka dhahaya maxay ahayd dadkaas waa wanaajinay saasaan yeelnay saasaan ka dhacnay qofka laftigiisu asaga laftigiisu waxa uu sadaqaysto inuu carifo ama sheego waa waxaan aakhiradiisa u wanaagsanay jazakallahu khayr xataa qofka hadduu xumaan kaa sheego saasaa wanaagsan aad iyo aniga saasay ra'yigeyga aad aa umahadsan tahay waa ku mahad celinayaa laynka telefoonka kale. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. barnaamijka aan uga hadlayno arrimaha ama dhaqan xumida ama magaalo joogno xumida oo ah mid aad uga duwanaan kartid bulshada inteeda badan. laynka telefoonka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aad baan kuu soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogtid. أنا waxaa la yidhahaa Faysal Cabdi Cismaan waxaan joogaa Ethiopia deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Doolo. aad iyo aad ka soo dhawow barnaamijka waa la socotay arrimahan ka hadlayay. waan la socday barnaamijka waxaa weeye dhaqan xumada. haye run ahaantii Soomaalidu waxyaabo badan ayay caadaysteen inay ku dhaqmaan. siiba waayadan dambe waxaad moodaa in waxay dhaqan xumadii social media ay sii badatay. waa gartay taana waxaan maleynayaa waxaan aaladahan wax nagu soo kordhay dadku sidii la rabay uma faa'iideysanayaan qaab xun ayay u faa'iideysanayaan. maxaa la gudboon marka wallaahi in dadkani waxaa la gudboon inay maaragtay xishoodaan waa dad islaama dhaqan ahaan jiray anigu iyaga waxaan xasuustaa xilli xaflad xilli magaranaysaa meher u dhacayay oo sheekhii wax meherinayay uu yidhi war kaamirada iga daa yar duubaya aan nidhaahno war ka jooji sheekha kaamirada uu diiday baan xasuustaa oo social media u soo dhigay marka ummadda waxaad moodaa ilbax firkigan ku dhacay dhammaan say u dhan yihiin. waagaag Faysal aad aa umahadsan tahay adigoo jooga dowlad deegaanka iyo xagga Ethiopia. laynka kale ee telefoonka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام عقب ديق مين مقشع ha waa ku maqlaa magacaaga halkaa joogtid. ني محمد اللي يرادا ايطاليا جوغا ني هورت waa barnaamij fiican laakiin intii ugu fiicneed basheegtaba intaas in ka sii xunaa jirta ma garad haye bal ii soo gudbi maxaa way arrimadaadu ay tahay. niyo wax badan jira oo meesha laga sheegi karin oo qaldan intaas xan iyo waxyaalahaas waa waxyaalo basiid ah oo ilaahay ka cabso qofka hadii la yiraahdo oo xishoonayo laakiin waxaas wax ka sii darna jira dhaqankii baan ka sii lumaya dadkii diintii baa ka sii baxayaan inay isdooriyaan oo maxay haytoole qof oo dhidig ahayo lab noqonaya ama qof lab ahayo kii kale isku bedelaya oo maxay haytoole dadkeenii waxaanan anagu dhaqan iyo diin midna aan u lahayn bay dadkeenii galeen marka waxaa laakiin ugu wacan wadan ka burbursan baa ugu wacan siyaasadda ugu wacan wadankeenu hadduu dhismi lahaa waxaan aaminsanahay in maxay haytoole ummaddu saan ka roonaa lahayd aad iyo aad inkastoo la horumaray oo teknolojiyada maantay wax qaab daran baa social media ka soo socda nin iyo naagtiisi iyo caruurtiisi oo qaaqaawan baa lasoo dhigayaa ama laba naagood baa intuu isku soo dhaco baa maxay haytoole fadeexad lasoo dhigayaa waxaasna wax diinta iyo dhaqanka suuban ka fog waay maxaa marka maxaad soo jeedin dadkii xataa isguursan lahaa markii wiil xun oo qurun ah oo soo dhigo gabar muslimad ah sawirkeeda oo qaab daran oo soo dhigo baraha bulshada xataa dadkii isguursan lahaa bay saameyn ama effect ku yeelata ma garan aad iyo aad marka dadka culimadu ha u kacdo aqoon-yahanku ha kaco dadka waxgaradka ha kaca rag iyo dumarba meesha waxaa weeye ummaddan in la badbaadiyo u baahan tahay